Somali STEM Society oo hay'ad inta badan wax u faa'iideysa tababaro kala duwan siisa ardayda Soomaaliyeed ayaa waxa maanta tababar ay u qabatay arday ka tirsan dugsiga Al-Anfal kuwaasi oo markaasi ka soo qayb galay tababar ballaaran oo lagu qabanayay hoolka Hana Academy ee ku yaala magaalada Muqdisho. Ardaydana ayaa waxyaabaha tababarada ay ku qaadanayaan waxaa ka mid ah physics, biology, chemistry, science iyo xisaabaadka kuwaasi oo markaasi wax fara badan ka faa'iiday. Ardaydan ayaa ku tababaranaya robotyo ama markaasi qalab kala duwan kuwaas oo sahlaya inay wax badan ka fahmaan sharaxaad fiicanna ka qaataan tababarka la siiyay. Waxaana STEM ay tahay hay'adda kaliya ee tababaro noocan oo kala ka bixisa Soomaaliya kuwaas oo ardayda Soomaaliyeed kaga faa'iideynaya sidii ay u noqon lahaayeen dhaqaatiirta, saynisyahanada iyo injineerada mustaqbalka. Iskuulada tababarkan ka faa'iideystay ayaa waxaa ka mid ah dugsiga Banaadir Zone kaasi oo ardayda la siiyay mid la mid ah tababarkan ay maanta qaateen ardayda ka socotay dugsiga Al-Anfal. Fatxiye Ibrahim Xuseen oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee Somali STEM Society isla markaana ah mas'uulka hawshan waday ayaa la hadashay Dalsan TV waxayna ka warbixisay noocyada kala duwan ee tababarada ay bixiyeen. sidoo kale physics-ka barataan, chemistry-ga barataan, maths-ki barataan. marka qaybtaas oo basic-an maanta idin tusaynaa ka bacdi advance-giisa waan idin tusi doonaa. robotyadaas iyo qalabka idin hor yaala dhamaantood waxay u taagan yihiin injineerada berri oo ka soo bilaabmaya physics ka bilaabmaya maxaa la dhahaa maths ka bilaabmaya qaybta science-ka iyaduna waxay u taagan tahay dhaqaatiirta berri dhaqaatiir dhamaystiran oo idin maxaa la dhahdaa sharixi doonaan haddii ilaahay dhaa physics-kaas iyo chemistry-gaas waxay noqon doonaan dhaqaatiirta berri toole rajayn doontaan marka secondary-ga ka baxdaan haddii ilaahay idmo jaamacadda fakalka waliba science haddaad doorataan ama qaybta medicine-ka dhehe haddaad doorataan wixii aad ku baran lahaydeen oo basic ah ayaa hadda aan idin tusi doonaa haddii ilaahay idmo. marka waxaan rajaynayaa maskax furan baa hadda haysaan wali dhal arday yar baatina waxaan idinka faa'iideynaynaa 100% aan isku dayno inaa biology-ga exactly wuxuu yahay oo lab-kiyo wixii la isku dardarayay inaad fahantaan, chemistry-ga sidoo kale aad fahantaan, technology oo maxaa tahay, engineering maxaa tahay, mechanical engineering waliba maxay tahay inaa maanta idinkoo intaas idin bayaansantihiin oo fahamsan inaan aynu kala tagi doono haddii ilaahay idmo. aad baan ugu faraxsanahay Al-Anfal School macallimiinta iyo maamulka iyo ardaydaba waxaan rajaynaynaa STEM inaa uga faa'iideysan doontaan. Somali STEM Society oo marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaano Science, Technology, Engineering and Mathematics ayaa waxa ay qayb weyn ka qaadanaysaa sidii ardayda Soomaaliyeed ay ku noqon lahaayeen dhaqaatiirta, injineerada iyo saynisyahanada mustaqbalka. Cabsaaq Dhoore, raadiyaha iyo telefishinka Dalsan, Muqdisho. si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo Next kadibna Confirm ugu dambeyntiina gali MPin-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.